agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdirashiid Ibrahim Sheekh Cabdiraxmaan ayaa magaalada Hargeysa ku soo xidhay tababar ku saabsan tacadiyada loo geysto haweenka kaas oo socday muddo 2 cisho tababarkani oo ay soo agaasitay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ayaa waxa uu horeyn halkaasiyada laga jeediyay agaasimaha waaxda lamaanaha iyo wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwade Ciise iyo sidoo kale macallinkii bixinaya tababarkaasi waxayna faahfaahiyeen muhiimadda uu lahaa tababarkaasi waxa uu tababarkani ku saabsanaa inaynu fahanno tacadiyada ka dhanka ah jinsiga waxaynu tababarkan ku baranay noocyada ay leeyihiin waxaynu ku baranay baahiyaha ay qabaan dadkaasi baahiyahaasi sideeba adeegooga loo buuxinaya adeegii loo qaban lahaa sidii loogu qaban lahaa aad baad u mahadsantihiin muddadii 2 cisho ee waqtigiina na siiseen iyo sidii fiicneed aad uga qayb qaadateen tababarkan 2 cisho noo socday kaasoo dhammaan aad ka soo aad wadateedin adeegayaashii u adeegay dadka tacadiyadu ku dhacaan sidii aad counseling u siin lahaydeen dadka tacadiyadu ku dhacaan aad tababarkan ku qaadateen Cabdirashiid Ibrahim Sheekh Cabdiraxmaan agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ayaa isagoo tababarkaasi si rasmi ah u soo xidhay tababarkan runtii muhiimad weyn buu leeyahay si guud dadkeena dhibaatooyin baa iska haysta dhibaatooyinka ku dhaca inta badan waxa ugu muhiimsan waa in talooyin nafsiyaad la siiyo way yar tahay bulshadeena dhaqanka noocaas in talo la isa siiya qoysaskeena lafteena aad ugu yar tahay qofkuna waxa ugu baahan yahay runtii waxa weeye sida ay saayeel markay xaalada ku dhacaan wadikii 2 cisho u dambeeyay ka soo hadlayay dajintoodii sidii rajo loogu abuuri lahaa qofku si bulshada noloshii ugu jiray halkii uga sii wada runtii wax sahlan ma aha inta badan wasaaradda aanu joogno xafiisyada waxa ugu badan ay ku imanaya dad tala doonaya dhibaato haysato oo marka tala yar siiso taladaasi wax weyn runtii u tarayso tanna marka qof dhibaato ku dhacday oo dareemaya waliba ay jiraan arrimo dhaqan oo adag oo qof intuu ku yimaado oranaya waxa noocaas ay ku dhacay wax la qabo aad bay runtii u adagtay marka dadka sidii loo taakuleen lahaa muhiimad weyn bay runtii leedahay case baa ka dhacay hay'adaha dawladda aad warkeeda hay wada haysaan case-kaasi ilmaha yar intaan ay dhibaato ku dhicin inaan baahay hay'adaheena mid kamid ah ay timid dhibta noocaas ay haysato oo iga imanayso qof noocaas ah waxaan u baahanahay wax laga qabto wala la yaabay waxa la sameeyay intii waa la eriyay ilmihi yar ah awad ummadda ceebanaysa ka baxbaa la yidhi meesha inantii waxay meeshii ku soo noqotay case-kiisa ku dhacay oo dhibaato badan runtii gaadhay marka dhaqanada dadkeena runtii iska adag mar hadduu adag yahayna waxaan u baahanahay in la isku dayo dadkeena sidii dhibaatada ku dhacaysa loo taakuleen lahaa waxna runtii loogu sheegi lahaa ayaa runtii muhiim ah